السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة إن شاء الله تعالى وعبد الناصر وسيدي عادة إنو أهيد إديسو قد بنتونا برنامج يديني تحنها أها عين بعينك أها عاوة إن شاء الله تعالى وحان دينها يا شيكو شيكدا مقعيدا وحا ليلة هذا هل حراله هوين يدو هشي قبل كميدا هوينكا كنول دالك إنجريسكا أما كنول لانشري دالك إنجريسكا هل حراله أي هوين يدو هشي marka sheekada insha Allah markaan idin bilaabo ayaad si fiican u fahmi doontaan gabadh magaceeda la oran jiray Lady Godiva ayaa la oran jiray gabadha waxa qabay waa gabadh Ingiriis weeye gabadhu waxay noolayd bartamihii qarniyadii dhexe ayay noolaayeen dadkaasi waxa qabay ninka mas'uula gobol kamida gobolada Ingiriiska waxay deganaayeen magaalada London ayay deganaayeen London bay deganaayeen waxa la oran jiray ninka qabay wuxuu ahaa ninka haysta gobolka ee ka mas'uulka ah buu ahaa Leo Frank ayaa la oran jiray isaga ayaa gobolka xukumi jiray xilligaas oo ku beegnaa casriyadii dhexe ayay dadkaasi halka ku noolaayeen gabadha la yiraahdo Lady Godiva waxay ka codsan jirtay had iyo jeer waxay ahayd gabadh wanaagsan oo akhlaaqad fiican oo dadka shacabka ah ee uu ninkeedu xukumayo aad iyo aad u jecel oo u damqata oo mar walba waxa ay dareemayaan la dareenta oo xanuunka ay qabaan la xanuusata haddii ay farxaanna la faraxda mar walba wuxuu ahaa dareenkeedu mid ku xidhan dareenka shacabka uu odaygeedu ka mas'uulka yahay hase ahaatee Leo Frank oo ahaa ninka iyada qabaa wuxuu ahaa nin adag oo aad iyo aad u adag oo qalbi adag oo naxariis daran oo shacabka Ilaahay mulkigooda iyo maamulkooda u dhiibay ee uu madaxda uga dhigay waxa weeye aan waxba ka dhageysan wuxuu ku dalacay cashuurtii ayuu intaas oo jeer oo kala duwan uu ku dalacay dabeeto Lady Godiva waxay mar walba ka codsan jirtay odaygeeda oo ay ku oran jirtay waar dadka waa dibtay cashuurta hoos uga dhig waar dadka waa dibtay cashuurta hoos uga dhig dhagay jalaq ma siin jirin mar walba waa uu diidi jiray iyaduna kamay daali jirin markasta waxay oran jirtay ummadda waa dibtay Leo Frank ummadda cashuurta hoos uga dhig gudoomiye ummadda cashuurta hoos uga dhig bay mar walba oran jirtay hase ahaatee dhagay jalaq ma siin jirin sidii ay arintu sidaa u ahayd ayaa maalin maalmaha kamida ninkii gabadha qabay ee Leo Frank waxa uu go'aansaday in uu codsiga gabadhiisa aqbalo maanta codsigii gabadha wuu aqbalay gabadhiisii buu u yeeray wuxuu yiri Lady Godiva kaalay waxaan aqbalay codsigii aad iga codsan jirtay had iyo jeer ee ahaa in aan bulshada cashuurta ka dhimo laga bilaabo maanta waan ka aqbalay laakiin shuruud baa ku xidhan muxuu yiri laakiin shuruud baa ayaa ku xidhan horena waxa loo yiri shuruudi aabaha ka weyn haddii arrin muxuu ahaayay lagu xidho shuruud runtii waa inaad sideeda u martaa ama waa inaad ka cudur daarataa oo aad tiraaniyo anigu shuruudda kari maaye arrinkaasi halkaa ha igaga baaqdo dabeetana waxay tiri gabadhii waa si wanaagsan hawraarsan weeye soo daa maxay tahay shuruudda aad igu xidhaysaa wuxuu yiri maadaama aad iga dayn weyday dadka cashuurta ka dhig oo muddo dheer aad mar walba ilahayd ummadda cashuurta ka dhig aniguna aanan kaa aqbalin maanta waxaan go'aansaday in aan kaa aqbalo codsigaagii oo aan cashuurta ummadda ka dhimo shuruudda aan kugu xidhayaana waxa weeyi waa in aad adiga oo qaawan oo sidii aad ku soo dhalatay ah oo mur iyo andariira oo aan madax iyo mijatoona waxba ku xidhnayn waa in aad suuqyada London dhex martaa haddii aad sidaa yeesho waxaan ka dhimi doonaa dadka cashuurta haddii aad yeeli weydana waxba ka dhimi maayo sidaasuu ku yiri gabadhii markii uu intaa ku yiri ayaa gabadhii way fikirtay dabeetana waxay tiri gudoomiye waan aqbalay codsigaagii waan aqbalay waanan qaatay waanan yeelayaa aniga oo qaawan baan suuqyada London dhex marayaa ballantii buu siiyey aniga oo qaawan baan suuqyada London dhex marayaa bay tiri sidii baa lagu kala tagay maalintii ay ballantu ahayd markii ay go'aan ka qaadatay Lady Godiva
dadweynihii ku noolaa London oo dhan ayaa warkii maqlay sida uu guddoomiyuhu gabadhiisa ugu xujeeyey in ay iyada oo qaawan oo mudh iyo andariira ay suuqyada dhex marto dabeetana dadweynihii ile way ogyihiin oo way yaqaanaan gabadhan inay tahay gabadh fiican oo iyaga u damqatee waxay yidhaahdeen maadaama uu sidaa yidhi guddoomiyaheennii si aynu gabadha ugu heelinno waa in aynu maanta aynaan u soo bixin magaalada qof walowba albaabkaaga xidho daaqadahana wada xidha cidayna ha soo bixin suuqa cidayna ha u soo bixin albaabada iyo daaqadahana wada xidha sidaasaynu ugu hiilanaynaa Lady Godiva shacabkii iyo dadweynihii London ku noolaa oo dhan ayaa dhammaantood sidaa yeelay dabeetana Lady Godiva waxay soo fuushay faras bay soo fuushay sidii bay magaaladii ku dhex martay iyada oo aan waxba xidhnayn cidina aanay daawanaynin markaasaa waxa u soo sheegay wasiir ka mida wasiiradiisii oo arrinta dusha kala socday ayaa u soo gudbiyey guddoomiyihii oo ku yidhi gabadhaadii oo muxuu ahaayey qaawan oo faras fuushan ayaa suuqyadii London dhex maraysa hase ahaatee magaaladii waa haariban cid alliyaala iyo cid suuqii maraysaa haba yaraatee ma jirto guddoomiye sidaa la soco oo sidaa u ogow gabadhii waxa u hiiliyey Lady Godiva shacabkeedii baa u hiiliyey oo uga hiiliyey ninkeedii ama odaygeedii dabacsanaantii iyo maxaanku idhaahdayey wanaaggii faraha badnaa ee ay ummaddeeda u haysay baanay dadkeedii ugu hiiliyeen aad iyo aad saasay ugu hiiliyeen runtii waa arrin aad iyo aad yacni loogu cibro qaato weeye oo looga baahan yahay dadka bini aadamka ah rag iyo dumarba in uu qofku ummaddiisa u damqado nin iyo gabadh wuxuu yahayba inuu qofku dadkiisa u damqadaa haddii uu madaxdooda yahay waa daruuri waa arrin lagama maarmaana waa arrin uu qof kasta ku waajiba markaa gabadhaasi waxaan la yaabay oo aan is idhi warniyahow ninkan talow marka mahmahihii soomaalida la eega maxaa qaban lahaa horta nin Soomaaliyeed dee gabadhiisa maba yidhaahdeenba adigoo qaawan suuqyada dhex mar waayo innaga dhaqanka iyo diinta ayna xidhaysa hase ahaatee ninka noocan oo kale ah waxaynu odhan karnaa waa ninkii la yidhi hadday 3 kaa dhimata baa la yidhi 3 baa kaa tagta haddii 3 kaa dhimato 3 baa kaa tagtaa la yidhi 3 hadday kaa dhimato 3 baa kaa tagta 3 hadday kaa dhimato 3 arrimood baa kaa taga oo aana dib u arag kow waxa la yidhi haddii uu qalbigu hadduu kaa dhinto naxariistaa kaa tagta dabacsanaantaa kaa tagta haddii qalbigu kaa dhinto naxariis oo dhan baa kaa tegaysa waxaa la odhanayaa qofkaasi waa qalbi dhagax ninkaa hebel waa qalbi dhagax waxba cid kama dhegaysto waa keligii taliye tiisuunbuu maroorsadaa saasaa la odhanayaa haddii qalbigu uu kaa dhinto waxa kaa tagta naxariista haddii caqligu kaa dhintana xigmadda oo dhan baa kaa tagta hadalkaagu wuxuu noqonayaa madax hadalkaagu wuxuu noqonayaa hadal aan sa iyo so kala lahayn hadal aan madax iyo mijo kala lahayn wuxuu noqonayaa hadalkaagu kii la yidhi hunnu hadal maaha himbiriirsina waxarag maaha hunnu hadal maaha himbiriirsina waxarag maaha hadalkaagu hunnu buu noqonayaa iyo huha hadal aan qiimo lahayn buu noqonayaa haddii damiirku kaa dhintana baa la yidhi damiirku wax kastaaba way kaa tagaan haddii damiirku kaa dhinto wax alliyaala wax kasta oo wanaaga caqligiibaa kaa tegaya cilmigiibaa kaa tegaya xigmaddiibaa kaa tegaysa dulqaadkiibaa kaa tegaya wanaaggiibaa kaa tegaya dabacsanaantiibaa kaa tegaysa dadwadkiibaa kaa tegaya wax kastaa way kaa tegayaan markaa 3 hadday kaa dhimata baa la yidhi 3 baa kaa tagta haddii caqligu kaa dhinto xigmaddaa kaa tagta haddii caqligu kaa dhinto waxa kaa tagta haddii qalbigu kaa dhinta baan u jeedaa naxariistaa kaa tagta haddii caqligu kaa dhintana xigmaddaa kaa tagta haddii damiirku kaa dhintana wax kastaaba way kaa tagaan markaa waxaynu odhan karnaa ninkaa guddoomiyaha ahaa ee la odhan jiray Leo Frank ee gobolkaa xukumi jiray ee Ingiriiska ahaa 3duba way ka dhinteen 3duba
way ka dhinteen waayo waa ninka naagtiisii amray in iyada oo qaawanay suuqyada dhex marto isaga xujadiisu waxay ahayd inaanay yeeli karin inta ay isqaawiso inay suuqa dhex marto iyadana waxa wax walba kaga weynaa dhibta iyo culayska saaran shacabkeeda oo ay u damqanaysay marka caawa insha allahu tacaala halkaa sheekadaasaan kusoo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin subscribe-ta like-ta iyo share-tu dee waa xaggiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan dambe oo xiise leh